xoogga dalka Soomaaliyeed Sariye Guuto Daahir Aadan Cilmi Dhaqarshe oo ay xafiiskiisa kula sugnaayeen abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdisaaq Khaliif Cilmi taliyaha qaybta koowaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Qaafow iyo madaxa hoggaanka saadka ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Cabdullaahi Macalin Nuur ayaa saxaafadda uga warbixiyay qasaare baaxad leh oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed u geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo isku dayay inay weerar ku soo qaadaan fariisimooyin ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku lahaayeen deegaanada Sambuni iyo Daynunay ee gobolada Shabeellada Dhexe iyo Baay iyadoo taliyuhuna xusay in ay ciidamadu ku guuleysteen inay jabiyaan kooxdaasi oo ay hub aad u fara badan ka furtaan maleeshiyaadka nafla caariga ah dagaaladaas waa ku joogtaa mar kasta iyo maalin kasta oo jira xalay waxay soo weerareen Daynunay marka kuma ay guuleysan sida caadada ayagana kama waantoogaan marka khasaaro gaartay waxay kaloo soo weerareen meesha la yiraahdo Sambuni oo gobolka Shabeellada Dhexe jooga u dhow ayadana waxa weeye aad baa khasaaro u gaartay hubna waa laga qabtay dad badan way ka dhinteen marka yani dagaalkoodu waa mid joogta ah markasta mar walba waa jira lama se ku guuleysan horena uguma guuleysan dibna uguma guuleysan doonaan haddii alla idin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay dhinaca kale dhalinyarada ay qaldeen maleeshiyaadka Al-Shabaab inay ka soo baxsadaan oo ay isu soo dhiibaan dawladda federaalka Soomaaliya si ay u helaan mustaqbal aad uga wanaagsan kan ay haatan ku nool yihiin nimankaas Al-Shabaab waxaan oran lahaa run ahaantii rag laba group weeye groupkaas la khasbayna hadee waa khasab waa ragga hadda Shabeellada hoose iska soo dhiibay waa la ogyahay ayagu chance bay sugayaan inuu chance ay uga cararaan bay sugayaan inta kale u lacag doonateen waxaan leeyahay meel ka khayr roon u soo lacag doonta ka baxa ka waantooba laynta iyo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed dib martaba lagama yaabo inaad guul ku gaartid dil nin Soomaali oo miskiin oo wax ka galabsoo jiray dilkiisa inaad ku faa'iido lagama yaabo si kasta dilaya marka ayaga waxaan leeyahay waxa fiicnaan lahayd inaad ka waantoodaan ku biirtaan shacabkiina Soomaalida dhinaca ka raacdaan oo ka tala baxdaan fikradda khaldan ee dibadda laga keenay laga soo musaafiriyay banaanka niman soo musaafiriyo dalkooda aan tagi karin inay dalkayga qalalaasta ka sameeyaan dhibaato ka sameeyaan waa wax aad iyo aad farxun waxaas ka farxun ninka Soomaaliga oo ku taageeray fikraddaas oo dilaya nin miskiin oo masaajid ka soo baxay oo soo waligiis arkin oo raba inuu muslim noo sheegto marka waxaan leenahay mas-uultoobaysa ummadda Soomaaliya ummad muslim weeye ummad diin lagu qaldi kara maaha xoog iyo shucuubka ku wadaysana gacantiina mar dhow ka baxaysa taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la kaashanaya wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa qorsheynaya in dalka oo dhan laga ciribtiro maleeshiyaadka u dagaalama kooxda argagixisada ee Al-Shabaab maadaama xukuumadda cusub ee Soomaaliya ay horey ugu dhawaaqday in sanadkan uu noqon doono sanadkii dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo ka xoreynta cadawga guud ahaan waddanka